bismillahirrahmanirrahiim waxaan daawadayaal ku soo dhawaada qubanaha xaqiiqda wararka caalamka iyo Soomaaliya qodobadeennana maanta waxaan ku eegi doonaa barnaamijka qaybtan ninkii Trump ahaa oo mar kale isagoo markaas khudbad ka jeedinayay xarunta Capitol Hill oo aqalka Congress-ka ayuu mar kale weerar afka ku qaaday Soomaalida ku dhaqan gobolkaasi Minnesota kadib xilli uu markaas ka hadlayay gudaha xaruntaasi ayuuna si weyn buuq mar un qura isla qabsaday xaruntii ay si weyn markaas ugu sugnaayeen waxaan sidoo kale isla eegi doonaa maxay tahay talaabada waqtigan keentay in Trump mar kale dhabarjibin balaaran uu ku sameeyo Soomaalida ku dhaqan halkaasi Ilhaan Cumarse madashu way joogtay maxay talaabo nooca ayay u qaaday maxay ahaayeen aflagaadada hoose la sheegay waqtigan in ka dhax furantay gudaha dalkaasi Mareykanka in gabi ahaan laga soo tarxiili doono Soomaalida ku dhaqan halkaasi waxaan sidoo kale eegi doonaa madaxweynaha Israa'iil oo isna markaas soo gaaray dalka Ethiopia gaar ahaan magaalada Addis Ababa haddaba warar hoose la helay ayaa sheegaya in doorka ugu muhiimsan imaanshihiisu iyo booqashiisu ugu reedan ay tahay dalka Ethiopia iyadoo halkaasi Israa'iil ay ku leedahay safaarad Ethiopia ma kala hadli doona arrimaha la xiriira Somaliland iyo waliba sidoo kale aqoonsiga oo Israa'iil ay hore markaasi ay u siisay qayb kamid ah dalka Soomaaliya mana jirto ilaa hadda wali talaabo cad oo wali markaasi halkeeda imaade waxaan sidoo kale eegi doonaa xiisada bariga dhexe iyo waliba xaaladaha culus ee ka taagan waqtigan iyadoo mar kale u muuqato in Shiinuhu garab istaag balaaran u muujinayo Iran sidoo kale Pakistan hub culus ee iyana ugu deeqaysa Iran haddaba Iran talaabadeedu ma u muuqataa in ay yool adag ay markaas ka geysan doonto si adagna ugu hortagi doonto doonista Mareykanka iyo waliba xulafaysigeeda ka dhanka qodobadaasi iyo waliba wixii kale nagu soo kordha ayaan saaxiibaal ku qaadal dhigi doona daqiiqadaha ina soo aadan saaxiibaal idinkana noo cimaamado channelka de subscribe ta loo qabto like-tana saaxiibada hore noola joogo hay naga xasdin dad fara badan ayayna tusaysaa maasanidin mar kale ku soo dhawaada Shariif Show aan ku bilaabe ninkii odaygii Trump ahaa mar kale ayuu weerar afka ah ku qaaday Soomaalida ku dhaqan dalkaasi Minnesota iyadoo aan ognahay in xilligii ugu dambeeyay halkaasi ay si weyn ay Soomaalida ugu qaban jireen ISIS-kii marka laga saaray ayuu rabaa inuu isbedelo Trump oo walibana si cad markan goob fagaar ah iyagoo madal ay wada joogaan si cad markaasi u weeraray Ilhaan Cumar oo ka tirsan Congress-ka ee Mareykanka madaxweynaha dalkaasi Mareykanka Donald Trump oo khudbad markaasi ka jeedinayay xarunta Capitol Hill oo ah aqalka Congress-ka ee dalkaasi Mareykanka waxa uu weerar afka markaasi ku qaaday Soomaalida isagoo markaasi ka hadlayay wuxuuna ku tilmaamay musuqmaasuq markaasi ka dhacay Mareykanka iyadoo madaxweynaha Mareykanku wuxuuna si weyn markaasi ugu dhawaaqay in madaxweynaha ku-xigeenka JD Vance oo markaasi uu hogaamin doono dalalkan oo ay markaasi qayb ay ka yihiin in wax markaasi dhibaatooyinka ugu culus halkaasi ka soo gaartay oo ku tilmaamay in musuqmaasuqa qayb uu kala noqday waxa sidoo kale uu sheegay in aysan jirin buu yiri tusaale markaasi ka yaab badan Minnesota ee gobolkaasi iyadoo markaasi ay degan yihiin Soomaalidii ugu badnaa ay ku nooleen Mareykanka halka uu markaasi uu amray in markaasi lagu bilaabo dagaal soo gulooti ah oo waliba dambiyada kale la xiriira hadallo deelqaaf oo Mr. markaasi si gaar ah ugu beegsaday bulshada Soomaaliyeed ee ku nool gobolka Minnesota isagoo oo sheegay waa sida halkan aan ugu dhignay ayuu yiri in markaasi burcadbadeed Soomaaliyeed ay markaasi u soo dhiceen gobolka oo ay markaasi ka dhaceen balaayin dollar oo Mareykanka dhinaca kale Ilhaan Cumar oo iyana markaasi ka tirsan xisbiga dimuqraadiga ee gobolka Minnesota waana gabadhii ugu horeysay ee Soomaali Mareykan ah oo markaasi laga soo doortay Congress-ka ayayna markaasi ku qaylisay Trump iyadoo oo istaagtay kooramka ama ka hor walibana aan caadi ahayn markaasi ugu qaylisay Trump oo u muuqdo inuu si weyn markaasi ugu carooday hadalka iyo waliba qaylada ay u muujisay waxaan markaasi ag fadhiyay wakiilka dimuqraadiga ee Rush Taylor nin liirado iyadoo markaasi ay ka falcelinayay hadalkii gifka ahaa ee Trump oo markaasi u jeediyay Soomaalida ku dhaqan haweeneydan oo ka tirsan Congress-ka oo ka dhana ama dhinaca fadhisay Ilhaan Cumar ayaa markaasi soo lacday gacanta kadibna markaasi xoog ugu laabatay iyadoo Trump ay markaasi ku dhameeday weerarkii ugu dambeeyay ee bulshada Soomaaliyeed uu ku qaado kuna tilmaantay wax kasta ay iyo waliba qorshe kasta uu la yimaado Trump waxay ahaan doonaan baytiri kuwa markaasi gif iyo waliba ula kac ku ah bulshada Soomaaliyeed hadalka madaxweyne Trump ee ku saabsan socdaalka oo markaasi si weyn ugu soo horjeedo dimuqraadiyadda kuna aadan madaxweynaha Trump khudbadiisa ku jeedinay ayuuna ku tilmaamay in Soomaalidu ay yihiin kuwa markaasi burcadbadeed ah walibana si weyn wax ugu dhaca gudaha dalkaasi ee Mareykanka dhinaca kale madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Dan Vance ayaa markaasi loo soo
loo xil saaray in uu markaasi xiisadan uu sii dejiyo welibana khilaafkan cunaqabateyntan uu ku saaro lacagta canshuurta Mareykanka ee markaasi ka gaaraya iyadoo bilaayin dollar Mareykanku ay markaasi ka baxda ayuu yiri Trump. Haddaba maxay tahay baa la oran karaa sababaha keeni karo in Trump markasta ay weerar aan gabasho lahayn uu ku qaado Soomaalida ku dhaqan dalkaasi mise waa isku daygiisa oo aanan marnasiba ugu laaban karin oo waliba uu arko inuu ku aflagaadeyn karo. وهاجاك دينا عكلة مدحونها إسرائيل إسحاق هيرزو أيها إسنا مركان سو جاري أما يمي مجال دادس أبا عاصمة الدلكة إثيوبيا باقشة الرسمي جاي مدحونها إسرائيل وكتجا إثيوبيا markii uu madaxweynuhu markaasi Isaac Herzog uu ka soo degay gegida diyaaradaha international airport markaasi Addis Ababa ay ku soo dhaweeyeen wasiirada arrimaha dibadda Ethiopia iyo waliba sidoo kale danjiraha dalkaasi iyo safiirka u fadhiya dawladda iyo safiirka u fadhiya Israel dalkaasi Ethiopia Addis Ababa waxaana muuqata waqtigan in loolan kala siyaasadeed oo aad u xoogan dhankoodu ay ka wadaan iyadoo qorshaha ugu waaweyn ay yihiin sidii markaasi ay ugu wada hadli lahaayeen wadaxaajoodka ku aadan doorka ugu muhiimsan iyo waliba sidoo kale iskaashiga labada dal ee u dhaxeeya laakiin wararka la helaya ayaa tilmaamaya in ilaa ay haatan wali aynan cadeen laakiin si cad ay u sheegayaan in Ethiopia ay kala shaqeyn rabto doorka ugu muhiimsan xiriirka diblomaasiyadeed ee kala dhaxeeya Israel iyo waliba sidoo kale Soomaaliland mana jirto ilaa hadda wax cad oo wali ka soo baxay warkan markaasi la soo dhigay bogga Facebook ee wasaaradda arrimaha dibadda Ethiopia ayaan markaasi lagu sheegay inta uu joogo in madaxweyne Herzog oo la filayo inuu markaasi wada hadallo uu la yeesho Israel waa markaasi saraakiil sarsare ee andhahe ee ka tirsan dawladda Ethiopia si markaasi ugu wada xajoodaan yoolkooda ku aadan iyo waliba wax ka bedelka ee arrimaha la xiriirka diblomaasiyadeed haddaba arinta inta ugu badan ee la hadalhaya ayaa ah Ethiopia kaalin lixaad miyay ka geysan doontaa xiriirka diblomaasiyadeed ee markaasi Soomaaliland iyo waliba Israel kala xamaadaba madaxweynahoodii halkaas soo gaaray waaga wanagintaas qubaniye wararka caalamka ee Soomaaliland kala socotaan Shariif Show saaxiib markale noolay grade subscribe saaxiibayaal ay naga xasdinidin mahadsanidin